Bismillah, alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah. Marka hore waxaan ku mahadinaa allah raxmaan, marka xigana waxaan ku salaamaa dhammaantiin salaanta salaamka. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Salaan kadib, waxaan rabaa maanta mar kale inaan aan isdul taago musiibadii ka dhacday gobolka Hiiraan, khaasatan magaalada Beledweyne, iyo gargaarkii iyo yaboohii ay Soomaalida meel kastoo ay joogaan mataqaanaa ay isku maxaa la yidhaahdaa sameeyeen isxilqaanka iyo muxuu ahaay waxqabadka degdega ah. Waxaan rabaa inaan talo aan muxuu ahaay usoo jeediyo inta muxuu ahaayey yaboohii la yaboohay gacanta ku hayso la rabo inay muxuu ahaay gaarsiiyaan dadka ku tabaaloobay maxaa la dhahaa musiibadii dhacday. Sida aan la wada soconno, waxaa jirta casharo aan ka baranay waxyaabihii lasoo dhaafay. Soomaalidu waxay tiraahdaa intuu waayuhu ibaday waqtiga ha ku baro. Sidaa darteed waxaa jira casharo badan oo hore noo soo maray, qaladaad badan oo hore u dhacay, gafaf badan iyo mataqaanaa waxyaabo badan oo Soomaalida loogu bartay. Inta badan annaga haddaan Soomaali nahay, aaminka waa nagu yaryahay, kalsoonida waa nagu yartahay, musuqa iyo muxuu ahaay wax isdabamarintana waxaan u nahay ahal. Sidaa darteed waxaa jiro waxyaabo kaloo aan ka baranay hay-adahan lagu sheego hay-adaha muxuu ahaay deeq-bixiyayaasha ah iyo mataqaanaa kuwan UN-ka muxuu ahaay ayagana markii oo dhibaatooyin noocyadaas oo kale ay dhacaan u gurmada wadamada ay markaas xiriirka dhow la leeyihiin ama danaha gaarka ay ka leeyihiin, oo ay ku sheegaan inay mucaawino gaarsiinayaan. Mucaawinada inta badan waxaa la dhahaa waxaa loo baahan yahay 100 milyan, 200 milyan, 300 milyan oo dollar oo la leeyahay. Waxaa la rabaa muxuu ahaay in dad lagu gargaaro, laakiin maxaa la dhahaa taasu inta badan waxay sameeyaan mataqaanaa inay raashin ku gadaan ama muxuu ahaay waxyaabo markaas aan munaasab ahayn dadka loo geeyo, ayadoo la awoodi karo dadka in markaas la gaarsiiyo lacag kaash ah oo wax u qaban lahayd. Dabcan bini'aadanka markii dhib uu soo gaaro, waxyaabaha ugu muhiimsan wax tari kara qofka qusuusan isaga wuu is yaqaanaa, wuu is garanaa, baahidiisa wuu ogyahay, wuxuu tabanayo wuu ogyahay. Laakiin haddii kaliya laga fikiro oo lacago fara badan inta laisku soo aruuriyo haddana la yidhaahdo aan ku gadno raashin, bacahan muxuu ahaay maxaa la dhahaa bacahan guryaha la dul saarto iyo marakaneeca iyo waxyaabo noocaas ah, in qarashkii lagu bixiyo oo dadkii waxba uusan gacantooda ku dhicin waa wax laga fiican yahay. Marka talada aan rabo inaan soo jeediyaa waxay tahay qoysaska ay dhibaatada soo gaartay guud ahaan markii la yidhaahdo Hiiraan Beledweyne, waa la yaqaanaa in tirkoob saxa la sameeyo, qoys walba intay yihiin tirkoob laga soo qaado. Waxaana daba taaganahay oo daba socdaa talo uu shalay soo jeeday Senator Alxaaji Muuse Suudi Yalaxow oo ahayd lacagahaas in loo marsiiyo shirkadaha kale ah Hormuud ama muxuu ahaay Dahabshiil, oo macnaha lagala jeedayna ay ahayd inaan shakhsiyaad gaara loo dhiibin oo aan lagu takrifalin, oo qof walba wuxuu maskaxdiisa ku jiro uusan samayn. Ku fiican tahay qoys walba in maxaa la dhahaa la isdul taago, tirkoob dhaba la sameeyo oo saxa, qiimeyn dhaba la sameeyo, dadka lacaga kaasha gacanta loo saaro. Lacagaha inta la qaado oo boorsooyin lagu qaado dadka looma qaybi karo. Marka waxaa ka wanaagsan dadka in la diiwaan geliyo si automatically ah wax ay nafta ku cishtaanna loo geeyo. Laakiin muhiimadda xoogga la saaro dadku in la siiyo lacaga kaash ah ay wax ku qabsadaan, ay isku samata bixiyaan, maxaa yeelay musiiba ku dhacday, aafa ku dhacday. Marka waxaa muhiim ah lacagahan lagu yaboohay in dadka inta muxuu ahaay si cadaan ah loogu qaybiyo oo gacanta loo saaro. Marka talada aan soo jeedinayo taas waaye, waxaana rajeynayaa Soomaalidu inay baraarugaan oo fahamkoodu oo iskeeno. Waana mahadsantihiin. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.